بسم الله الرحمن الرحيم ورين وحان ربا دمان شعبك reer Jabuuti ugu horeeya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inaan salaamo shalay galab ayaa waxaan soo gaarnay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taas oo la xiriirka soo jireenka ee walaaltinimo labada dal ka dhaxaysa horey mar dhaweyd waxaa dalka Soomaaliya ku soo booqday madaxweynaha dalka Jabuuti marka waxay ahayd xiriirka soo jireenka bal inaan ka wada hadno si loo sii wanaajin lahaa loo dardargelin lahaa maartay horumarka iyo wax wada qabsiga labada dal ay ku saabsanaa Soomaaliya iyo Jabuuti labada dal walaalo dariso oo iska maarmeen kolka laga hadlayo arrimaha masiiriga waxa kamid ah sidaan sheegay tiirarkiisa waxa weeyaan amniga kolka walaalaheen aad baan horta ugu hambalyeynaa siday maamulka iyo talada ay Soomaaliya u wadaan aad baan u hambalyeynaa madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa la dagaalanka argagixisada sida uga shaqeynayaan iyo sida deganaashada dalka iyo xasiloonidiisa ay maaragtay ay u wadaan ay u xoojinayaan